aadamuhu ayagoo dunuub badan ku dhacay inay qaybna ka toobad keenaan qaybna aysan ka toobad keenin si kale haddaan u dhigo toobadu ma qaybsami kartaa haafan haaf ma noqon kartaa hal toobatu tabacad wa tatajazza bimacnaa khamrana waad cabtaa zinana waad ku aafaysan tahay inaad zinada ka toobad keento ma dhici kartaa adoo khamrida weli fuudahaya meed fahanteen waxaan u jeedo kufri horaadoo lagugu haystay mid damboo lagugu haystay ka dambe intaad ka toobad keento kii hore ma dhici karta inaad baaqi ku noqoto macnahan ka hadlaya macnahaas weeye almuhim towbadu ma kala barantaa dunuubta qaarkood ma laga toobad keeni karaa adoon qayb ka toobad keenin baa asal fiqi ah waa masala fiqiya ina cabdishukuur haddaanu dhahano hadalkiisii dambe toobad buu ahaa waxaan leenahay wuxuu ka toobad keenay intii u dambayseen ku haysanay eenu ku nidhi nabigu ku xadgudbay nabiguu xaqiray diintii buu dulmiyey ninkaasi suu diinka ayaga khatar u geliyey naftiisa khatar ha loo geliyo warkaa dambuu ku aadan yahay haddii toobadiisu asaxdo annaguna waxaan ceshanaynaa faylkii aan hawsha ka bixinay hawlo kale oo horaan lagu haystay ma khusayso hawsha inaan celceliyaan u maynhaya waxaan u celinayaa aad fahantaan ayaan doonayaa jumhuur ahlicilmi waxay qabaan inay dhaci karto ay bannaan tahay in dunuubta qaarkeed laga toobad keeno adoo qayb kala baaqi ku ah oo dembi ku xidhan uusan jirin mid walba iskii baad oga toobad keeni waana waajib kulli inaad ka toobad keento haddayse adugu aad khaldanto qaybna ka toobad keento qaybna shaydaan kugu sii aafeeyo qaybtaad ka toobad keentay waa laga aqbali waa lagaa yeeli inta kalena ku soo socaa lagu leeh وهذا رأي جمهور أهل العلم وأنا سيدا صوابك بل ابن تيمية وحو قارسية ومذهب أهل السنة والجماعة قولك خلاف سنة وقول الخوارج والمعتزل أي هل كاسوا الله مراسحنا معها أرضي يسمى القيم باكسحا بل ومن مذاهب أهل السنة خلافك حكجر بين أهل السنة لكن جمهور توحي قبان التوبة تتبعض وتتجزأ هذا مرك قول الجمهور وهو الصواب سامر كان أبلغو وحانو جيدا inaan u gudbo hadalka taxliilintiisa saddex dambi ama saddex kufri oo inaan warsamo ku haystay hadalkiisan dambe waa ku cad yahay inuu ka toobad keenay kufriga koobaad wuxuu ahaa in xadiidkii naaqisaatu caqlin wa diin ee saxiixaynka ku jiray ee ummadu ay talaqatu bilqabuuli waaltasliim akthara min 1200 sana inuu inkiroo dafiray baa ku jiray hadalka hore ee jarmalka uu ka jeediyay ma ahayn sama sidaasay ahayd hadalkan dambana wuxuu leeyahay xadiidkaasi waan ictiraafsanahay waan rumaysnahay bal iska daa asaga sunnadoo dhan baan yaan rumaysno masdaru tashriica asagana waan ogahay waa saxiix waana qaatay idan kufrigii ahaa takdiibu xadiidi rasuulillahi sal ly slam maca alcilmi bisixatihi kufriga ahaa si cad buu oga toobad keenay qaybta inaad fahanteen baan u malaynaya kufriga labaad ee ku cad yahay inuu ka toobad keena wuxuu ahaa waxaynu nidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo culummadii buu xaqiray hadalkiisa sida ka dhalanaysa maxaa yeelay xadiidka naaqisaatu caqlin wa diinin waxaa yidhi suubanaha oo awal culamaa'i ah hadduu xadiidku xaqiraad iyo liidid dumar xambaarsan yahayna nabiga ayaa dumarka liiday baa ka dhalay waa ka laasimtay haddaba nabiga ninka xaqira waa kaafir biijmaaci lumma